kulanti wanaagsan qodobada warkana waxa ugu waaweyn guddiga difaaca Itoobiya oo ka hor yimid Abiy Ahmed soo najeediyay in si degdeg ah dawladdu ciidamadeeda uga soo baxdo Soomaaliya si burbur looga badbaadiyo Itoobiya oo halis xooggan xilligan dhaxda ka taagan gudoomiyaha xisbiga wadani iyo wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha Somaliland oo gacanta iskula tagay sabab la xiriirta xariga xildhibaan Maxamed Abiib oo xaalad halis ku wajahaya gudaha xabsiga Mandheera Itoobiya oo ka dalbatay Djibouti inay ku soo wareejiso dekada u ballan qaaday inay siinayso madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle oo ku gacan sayray soona bandhiga hal qorshe oo ay u ogol yihiin Addis Ababa qodobadaas aad ku daawan doontaan warkay baweynaha hadii laga helo aynu ku bilownaa guddiga difaaca ee dalka Itoobiya ayaa ku gacan sayray qorshe uu wada ra'iisul wasaaraha dawladda Itoobiya si toos ah nooga hor yimid halisaha culus ee dalkaas uu dhexda ka galiyay waxaana ay soo jeedeen in la qaado dhowr tilaabo si burbur looga badbaadiyo Itoobiya ra'iisul wasaaraha dawladda Itoobiya Abiy Ahmed ayaa saacadii la soo dhaafay kulan xasaasi ah la qaatay guddigan difaaca isagoo qorshihiisu ahaa inuu kala tashado howlgallo qorsheysan oo ciidamada Itoobiya ay fuliyaan iyo weerar lagu qaado dawladaha dariska si gooni ah Eritrea oo ay doonayso Itoobiya inay dib uga soo ceshato dekada Asab oo mar kale xoog ay ku qabsato si ay kaga baxdo faqriga badla'aanta iyo dekada ay raadinayso maadaama dekadaas iyadu hore u lahaan jirtay hase yeeshee kala go'ay Eritrea iyo Itoobiya dhinaca Eritrea ay ku raacday sidoo kale waxa qorshayaasha guddiga la hortagay ra'iisul wasaare Abiy Ahmed kamid ahaa in ay fuliyaan heshiiska uu la galay madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi hadii awood loo baahdana ay dejiyaan istiraatiijiyadii weerarada lagu qaadi lahaa iyo habkii ciidan lagu geyn lahaa saylac iyo sidoo kale lagu hayaa xogaha ka imaanaya gudaha dalka Itoobiya ee warbaahinta wadankaas qaarkeed ay daabacayso waxay sheegayaan in guddiga difaaca ay ku gacan saareen dhammaan dalabyada uu la hortagay ra'iisul wasaaraha dawladda Itoobiya Abiy Ahmed si cadna waxay ugu sheegeen in tilaabooyinka uu qaaday oo dhan ay gaf yihiin isla markaana ay halis iyo burbur u soo horseedayaan dalka Itoobiya waxa ay soo jeediyeen xubnahan in la joojiyo dhaqdhaqaaqyada ka socda xuduudka Eritrea iyo Itoobiya iyo qorshaha dawladda ay ku dhawaaqday ay ku sheegtay in garya gardaraba ay kula soo laabanayso dekada Asab kuwaas oo dagaalo toos ah qarxin kara xaalad adagna laga dhaxli karo maadaama xilligan Itoobiya aysan dhankeeda haysan oo gudaha wadanka dagaal ay ka socdaan waxa guddigan ay soo jeediyeen in marka hore lagu mashquulo awoodda la saaro sidii loo xalin lahaa xiisadaha qoomiyadaha iyo ciidamada Itoobiyaanka u dhaxeeya ee gudaha dalka ka jira kuwaas oo sababay in ay barakacaan malaayiin ruux sidoo kalena ay istaagaan wax badan oo kamid ah nolosha asaasiga ah oo waxbarashada ugu horeyso kadib markii natiijada imtixaanka fasalka 12aad la soo saarana ay ka baaseen ardayda gashay imtixaankaas kaliya 5% 95 kale boqolkiibana ay dhaceen waa ilaa 8 milyan oo arday ayaana ku dhacday imtixaankaas sidoo kale guddigu waxay ka hor yimaadeen dhaqdhaqaaqyada Itoobiya xilligan ka wada xuduudka Soomaaliya ay la wadaagtay ciidamada faraha badan ee lagu soo daabulayo xuduudka kuwaas oo Addis Ababa ay doonayso inay ku qalqalgeliso amniga sidoo kalena ay ku qorsheynayso inay soo geliso gobolada waqooyi si ay ugu qabtaan dhulka uu heshiiska kula galay Muuse Biixi inuu ku wareejinayo Addis Ababa guddigan ayaa soo jeediyay in arrintaas dagaalo toos ay qarxin karto sidoo kalena Soomaaliya hadda ay ka awood badan tahay sidii hore oo Addis Ababa xaaladeeda kala daadsanaanta iyo dagaalada gudaheeda ka socda marka loo eegayo taageerada Soomaaliya ay haysato aysan u babacdhigi karin ciidamada Soomaaliya oo kaashanaya kuwa Masar Turkiga iyo dawlado kale oo si weyn u taageeraya dawladda federaalka Soomaaliya dana waaweyn kale isla markaana u diyaar ah inay ciidamadooda ka dagaal galiyaan gudaha Soomaaliya si Itoobiya loo jibiyo waxa guddigan difaaca ay soo jeediyeen hadii tilaabo dagaal ugu la galayo Soomaaliya la qaado in Itoobiya sidaas ku burburi doonto taasina ay keeni doonto in dawladda Itoobiya ee muddada dheer soo jirtay gabi ahaanba gacnaha Abiy Ahmed ay ku burburto waxaana ay kula taliyeen in dhammaan arrintaas uu dib uga gurto waxay sidoo kale u soo bandhigeen in si degdeg ah ciidamada Itoobiya looga soo saaro gudaha Soomaaliya maadaama dawladda federaalka Soomaaliya ay sheegtay inaysan doonaynin ciidamadaas inay ka sii mid ahaadaan howlgalka nabad ilaalinta midowga Afrika ee ADMIS muddaxileedkooda markii uu dhamaadana qasab ay tahay gabi ahaanba wadanka inay faarujiyaan ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ayaa loo soo bandhigay inuu joojiyo go'aankiisa ah in ciidamadiisu aysan ka soo baxaynin gudaha Soomaaliya iyo inuu la dagaalamayo ciidamada Masar ee gudaha Soomaaliya ku soo wajahanay heshiiska difaaca ee ay wada galeen madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo Cabdi Fataax al-Siisi fulinaya arrimahaas oo ay sheegeen inay ku sunti karaan Itoobiya inay duulaan ku tahay Soomaaliya oo ay doonayso in qaybo kamid ah dhulkeeda iyo wadankeeda ay xoog ku qabsato aynu ku soo jeedin karteen dhaha caalamka dagaalo toos ahna ay wajihi karto Itoobiya sidoo kale cunaqabateena dhinaca dhaqaalaha iyo hubka ahna la saari karo si kastaba guddigan ayaa qaba in tilaabooyinka uu qaaday Abiy Ahmed dhamaantood ay yihiin kuwa qaraska toornimo oo halis weyn u horseeday
Itoobiya haddana burbur qarka u saaran tahay haddii tillaabooyinkaas uu ku sii socdo Abiy Ahmedna waxay u bandhigeen in Itoobiya gabi ahaanba gacnihiisa ay ku burburi doonto sidoo kalena aysan u diyaarsaneen xilligan Itoobiyaanku in ay iska difaacaan xiisadaha dibadda ah ee uu abuuray Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed. waxa arrintan ay ku soo aadaysaa xilli ay sii xoogeysanayaan dagaalada ka socda gudaha dalka Itoobiya oo qowmiyadaha Oromada, Amxaarada iyo sidoo kale Tigreegu ay saldhigyo muhiim ah ka qabsadeen ciidamada Itoobiyaanka. ciidamo fara badan ay ka laayeen sidoo kale waxa qowmiyadahan weerar ay ka bilaabeen xuduudka ay la wadaagto Itoobiya dowladaha Suudaan iyo Kenya oo dhankooda xiisad siyaasadeed aysan ka dhaxaynin. hase yeeshee amni ahaan markan ay jabhadahaasi u qalqal gelinayaan maadaama Eritrea, Djibouti, Masar iyo Soomaaliya xiisad ay kala dhaxayso Itoobiyana waxay doonayaan in irid walba laga soo xiro maamulka Abiy Ahmed. Suudaan waxay xiratay xuduudeeda iyadoo sheegtay inaysan jirin cid ka gudbi karta marka laga reebo ciidamo ay laayeen jabhadda Faano qoryahana ay ka dhaceen oo firxad ah oo ay sheegeen inay badbaadinayaan. waxaa sidoo kale jabhadda Shayni la yiraahdo dhankeeda ay weerar ka geysatay xuduudka Kenya waxaana madaxweyne William Ruto iyo dowladdiisu ay ku hanjabeen in gabi ahaanba dhankooda ay xuduudda xiran doonaan haddii weeraradaas ay sii socdaan si ay kaga badbaadaan qalalaasaha Itoobiya gudaheeda ka socda in uu wadankeeda gaaro. gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah wadani Xirsi Cali Xasan iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha Somaliland ayaa ku dhex dagaalamay xarunta wasaaradda kadib markii la isku afgaaray xariga xildhibaan Maxamed Abiib oo xaalad halis ku wajahaya gudaha xabsiga Mandheera oo uu ku xiran yahay hab afduub ahna xukuumadda madaxweyne Biix ay u dhigtay. xogaynu helayna ayaa xaqiijinaya in gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah wadani uu wasaaradda ka dalbaday ogolaansho uu ku booqdo xildhibaankan oo Mandheera ku xiran laakiin waxa aflagaadeeyay wasiirka oo ku tilmaamay qaran dumis taas oo uu ka carooday gudoomiyuhu. waxa halkaas dagaal gacanta ahna uu ku dhaxmaray gudoomiyaha iyo wasiir ku-xigeenka. ila waradii lagu kalsoon yahay ayaa inoo xaqiijiyay in gudoomiyaha ay baadka qoryaha iyo sidoo kale bistoolada la dhaceen ilaalada wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha taas oo halis gelisay nafta gudoomiyaha. waxaana xitaa xoguhu ay tibaaxayaan in ilaalada wasaaraddu ay qori u cabaysteen gudoomiyaha oo ay ku sigteen inay xabado ku ridaan. waxaa diriq lagu kala qabtay gudoomiyaha iyo wasiir ku-xigeenka waxaana gudoomiyaha xisbiga wadani dhaawac uu ka soo gaaray dhinaca dhabarka waxaana isagoo dhaawaciisa qaba oo ka qayb galay shirka golaha dhexe ee xisbiga oo maalinkii labaad socda. waxa xoguhu ay tibaaxayaan in gudoomiyaha xisbiga uu wado dacwad uu ka gudbinayo wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha Somaliland walow aan la garanaynin maxkamadda kiiskaas qaadaysa maadaama garsoorku aysan ahayn kuwa madax bannaan oo ay afduuban yihiin Muuse Biixi. si weyn ayaa isha loogu wada hayaa halka xaalkan uu ku dambeyn doono iyo sidoo kale in uu hirgalo dacwadan uu bilaabayo gudoomiyuhu. waa markii koobaad ee wasaaradda arrimaha gudaha Somaliland ay isku gacan saaraan gudoomiye xisbi mucaarad iyo sidoo kale mas'uul ka tirsan wasaaraddaas waxaana arrintan hadda salka ay ku haysaa xiisadaha sii koraya ee ka taagan gudaha deegaanada Somaliland. arrinta xildhibaan Maxamed Abiib ayaa u muuqata mid meel adag gaartay. waxaa loo diiday inay booqdaan eheladiisa xubno ka tirsan golaha wakiilada iyo xitaa xisbiyada mucaaradka hoggaanadooda. waxaana la soo warinayaa in xildhibaankan xaalad caafimaad oo halis uu ku wajahayo gudaha xabsiga Mandheera oo koomo uu ku jiro kadib dhaawacyo culus oo ay gaarsiiyaan ciidamada saldhigga. waxaa xildhibaan Maxamed Abiib hab afduuba looga soo qabtay garoonka diyaaradaha magaalada Hargeysa xilli uu ka yimid safar dibadda ah kadib waxaa loo dhaadhiciyay xabsiga Mandheera. ma jirto ilaa iyo hadda wax dacwada oo cad oo Somaliland ay ku haysato maxkamadda lama soo taagin waxaana sababta kaliya ee loo beegsanayo ay tahay inuu mucaarad ku yahay madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi oo siyaasadiisu uu ka soo horjeedo. Biixi waxa uu ku fashilmay in xasaanada uu ka xayuubiyo xildhibaankan oo golaha wakiilada ayaa diiday inay aqbalaan qorshahaas iyagoo sheegay inaysan jirin sabab xildhibaankan uu ku mutaystay in xasaanadiisu uu waayo. marka Somaliland ay weysay wada kale u soo martay xildhibaankan oo marar badan sheegay in isku day dil uu ka badbaaday ayaa hadda waxa laga afduubtay garoonka iyadoo lagu silcinayo gudaha xabsiga Mandheera. xildhibaan Maxamed Abiib wuxuu ka soo jeedaa gobolka Awdal lagama taageersana Muuse Biixi iyo maamulkiisa oo waxa ku sugan shacab iyo ciidamo abaabulan oo isku diyaariyeen xitaa ay la dagaalamaan ciidamada Somaliland si weyn uga soo horjeeda heshiiska gardarada ah ee Biixi uu la galay ra'iisul wasaaraha dowladda Itoobiya ee uu doonayo inuu ugu soo hogaamiyo biyaha dalkeena oo 20 kiiloomitir oo kamid ah biyaha iyo dhulka Soomaaliyeed uu ku wareejiyo Addis Ababa.
guud ahaan intaan kusoo gabagabeynaya wararkii ugu dambeeyay arrimaha siyaasadda daawad haddii ay tahay markii ugu horeysay ee channelka soo booqata nagu soo biir subscribe dhow si share garee saaxiibo badan si uu gaaro tan iyo kulanti dambe ammaan Allah.